السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا خياري. ما أنت وحن رأينا هالكن تلاقي كسر شيء كسرعتا قليها تراجلياشة. أنت عشان كسابسن باركنا ذا تراكستوب بذا. ساد أكتهين أنتي نوج وحاءت كاضي أما أي أذكت هاي إن له هلو باركنا ذا تراكستوب يدا كياله. gaar ahaan xilliyada habeenkii xilliga dambe wixii loo gaaro 8-9 wixii ka sii dambeeya qorraxdu hadday dhacdo inta badan meelaha badankooda baarkin lagama helo. Waxaa hadda marka soo korodhay oo ilaa hadda dhowr incidenti ama dhowr shil ay ka dhaceen dagaal baarkinka bilaabmay oo xataa meelaha qaarkood dad xabada loogu dhuftay, qaar dhaawacmeen, qaar dhinteen iyo qaar ganacsi gacanta isula tagay oo waxyaabo kale oo nabaro isku dhuftay sida dubayaal iyo biro iyo waxyaabo la mid ah. Waxa hadda dhacday xilli aan saa u fogeyn state-ka Oklahoma truck stop TA ayaa waxa ka dhacday nin baa parking qof parkinada reserve-ka ah oo dadku ay sii booking gareystaan ayuu intuu iska yimi buu iska daalanaa miyaa intuu gaariga saa u dhigay buu iska seexday. Kabacdina security-ga meesha marmara oo meesha TA-ga ilaaliya baa wuxuu arkay gaarigan oo aan lahayn aan lacagta bixinin oo tigidhka una u saarnayn. Ninkii buu kiciyey, darawalka ahaa uu soo kacay, wuxuu yidhi dhaqaaq. Ninkii darawalka ahaana waa diiday. Waxyaabaha uu diiday ama ha noqoto wax asaga xaqiisa ka yimi ama ha noqoto wax inagu baan iska garanno ah hadduu qofku xilligii uu nasashada ku jiray sleeperka ku jiray saacadiisu ay u xidhnaayeen hadduu dhaqaaqo saacadii haddana waa bilaabmayaan waxa laga yaabaa inuu delivery leeyahay laga yaabaa damaba ahana wuxuu meeshu joogaa waa intaas waxa ha noqoto sabab kale ha noqoto wuu diiday. Ninkiina wuxuu yidhi waad baxaysaa, kana wuxuu yidhi bixi maayo. Kabacdina gacanta la sula tagay. gacanta markii la sula tagay ninkii security-ga ahaa booliis buu wacday. booliiskii joogay haddana isku qanaameen. kii security-ga ahaa baaskoolad buu iska soo jaray, ninkii darawalka ahaa buu xabada ku dhuftay. kii security-ga ahaa waa xidhan yahay, kii kalena cusbitaal buu yaallaa isagoo oo nafsi licli ku jirto. marka innaga marka arrintan toos bay inoo khusaysaa. number 1 xoogaa dadka qaarkood aqoon darro ah oo u maleeya baarkinadu inay free yihiin baa jirta. talabaad dad waxaan nahay u jilicsan waxyaabaha qaarkood, waxyaabaha altercation-ka, muranka, doodaha, dagaalada luqadda ha noqoto inaga oo maaragtay diiraddu iska keen saarantahay ha noqoto qaabkaaga iyo lebiskaaga iyo koofiyadda iyo dadka qaar baa koofiyadaha iyo maaragtay xidha maxaan ku dhahaa koofiyadda sunnaha iyo qaar baa xataa khamiis xidha. marka calaamado badanoo waxaa jira markiiba innaga inuu ku soo dedejinaya in markiiba dagaal qofku uu kugu soo qaado. marka arrintaa ha laga taxadiro. wax walba waxaa ka muhiimsan inaad loo deliver garayso iyo inaad lacag samaysid iyo inaad ballanta aadan miskaraynin. waxaa ka muhiimsan amnigaaga. qofka amnigiisa wax ka muhiimsan ma jiraan. as long as aad amni tahay oo qofku amni yahay oo jir ahaan iyo isaga iyo gaarigiisa iyo waxa uu wataa ay nabad qabaan wuu iska soconayaa, lacagna wuu samaynayaa, insha allah meeshuu u socdana wuu gaadhayaa. marka arrintaasi waa national issue. truck parkinku waa arrin waddanka dhan saamaysay oo parking ku filan aynan maaragtay aan loo haynin. meelaha qaarkoodna magaalooyinka biisigana wayba ka sii xag jiraan. magaalooyinka truck-stoobyada ku yar yihiin ama baarkinada ama rest area-yooyinka ama aan ogolaan in waddooyinka la dhigtana wayba ka sii xag jiraan. marka arrintaas ha laga taxadiro, ha la is ilaaliyo insha allahu tacaala. الله إذا النبض يالو خير بدي رجينا. السلام عليكم.